agaasimaha waaxda dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Somaliland Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah dadka aragga naafada ka ah. Kulankaasi oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa waxa laga hadlayay sidii loogu sameyn lahaa dugsi ay wax ku bartaan dadka aragga naafada ka ah. Sidoo kalena waxa isla goobtaasi agaasimuhu ugu qaybiyay dadkaasi qalab ay baahi weyn u qabeen dadka aragga naafada ka ee ku dhaqan magaalada Burco. Ugu horeyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe, maamulka ku-xigeenka dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Burco. In dadka loo hawl galo oo sidii iskuul ay u heli lahaayeen ay wax ku bartaan loogu hawl galo ayaan hoosta ka xariiqnay wada kasta iyo cid kasta na loogu garaaco loogu baadi doono waxaanay taasu dusha ka saaran tahay si dhaba marka aynu uga hadallo bulshada ay la nool yihiin. arintana waa arin dareen ahaan wallahi runtii in laga wada qayb qaato bulshada oo dhan ay tahay ay mudan tahay waayo dadkan waa dadkeennii waa dad inaga mid ah guryahanay ku wada jiraan intan markay noo muuqato maahane iyagoo fara badan dee dadka reer Togdheer waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan arrintan oo arrin khayriya oo runtii aad iyo aad arrin u wanaagsan oo wax badan ay Ilaahay naga siinayo xasanaad. Dhankooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadka aragga naafada ka ah iyagoona u mahad celiyay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale agaasimaha waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Somaliland u qaabilsan. diini ma haysano maaragtay ma haysano mid maadiya ma haysano hadaan nahay qolada aragga naafada ka ah waxaanu dalbanaynaa dawlad kaliya wax ma qabato oo dawlad wax ma qabato shicibka bulshada iyada dadka qurba joogta qaar baa xirfad u leh maaragtay caalamka waxaad ku arkaysaa qof indhihii iyo dhagihiiba aan waxba ka arkayn haddana soconaya wuxuu ku soconayaa xirfad maaragtay wax hadduu indhalaayahay oo dhagalaayahay dee ma jirto caalamka kama jirto laakiin walaalaha iyaga meel kasta kala jooga daafaha dunida ka kala jooga inay naga caawiyaan maaragtay kii qalab haya kii wax kale haya inay u tartamaan. maanta waxay u baahan yihiin waxbarasho sida runtii hore aanay u helinin laakiin maanta insha Allah tacaala waxay u baahan yihiin waxbarasho aad iyo aad u qiimo badan waxbarasho aad iyo aad soo taageerta u soo kicisa dad badan ayaa jira runtii waxbarasho aan diin iyo maaditoona aan baranin hase yeeshee insha Allah guriga isaga fadhiyo iska xaraysan oo soo arka inay iyagu ay dadka ka liitaan. waa bas la helo waa iskuul la helo waa qalabkan ay ku isticmaalaan oo wadankana oolin qaalina ah oo aynu helo iyo inaynu helo macallimiin u tababaran horta afartaaba iskuulada kale kaga duwan waxa ugu harayna hagrashada maahe waa dhaqaalaha inta leega galaya mar walba Kenya inuu ka habsaamo ee cid la necib yahay cid gaar loogu jeedo toona ma jiraan. waxaan si gaar ugu mahad celinayaa walaalkay Farxaan iyo Badriya oo ugu badnaa dadka campaign-ka adag habeen iyo maalin baan wada hadlaynay sayna hawshaasi aynu uga madadhelno dugsigan horta 2016 baanu gudoomiye u tababarnay macallimiin qalab ilaa xilliga yaalay wasaaradda waxbarashada Togdheerna way jiraan waxa intaas ay u yaaleen inta loo hayay wax weeyaan maadaama afar geeso dugsi uu haayo ay talahaan la awoodi waayay buu xidhnaa laakiin waxaan doonaynaa waxaynu haysanay wax lagu bilaabo waxa la yiraahdaa zero is better than one macnaha zero-ga hal baa dhaama haddayna inagu horta dhaqaaqin oo aan wax la arkin iskuulka weligiisaas ma furmayo marka anagu go'aan formula ah waxaan qaadanay inaynu wasaaraddii heer qaran iyo heer gobol intaynu iskaashano wixii aan awoodi karno wixii kale aynu ummadeena ganacsatada u qashano. Maxamed Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Wardi, telefishinka caalamiga ee Somali Cable TV, Burco.